sida uu dhigaya jadwalka miisaaniyadda kulankan ay yeesheen wasiiradu maanta ayaa si weyn diiradda loogu saaray tallaabada koowaad ee diyaarinta miisaaniyadda taasoo wasaaradda horumarinta maaliyadda waxyaheeda dhaqaalaha iyo qorshaynta u soo bandhigtay guddida xaashida guudmarka miisaaniyadda ee afka qalaad loo yaqaano budget outlook paper kaasoo lagu dheehanayo heerka dhaqaalaha guud ee waddanka iyo siyaasadda ku aadan cashuuraha sidoo kalena kulankan oo uu shir gudoominayay wasiirka horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa waxa ka soo qayb galay xubno kamid ah wasiirada xanaanada xoolaha biyaha caafimaadka maalgashiga isgaarsiinta wasiir ku-xigeenka horumarinta maaliyadda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Cabdi Gurxan madaxda waaxyaha miisaaniyadda dhaqaalaha iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda maaliyadda sidoo kalena kulankaasi ayay guddida siyaasadda miisaaniyaddu si weyn ugu falanqeeyeen meelaha mudnaanta la siin doono miisaaniyad sanadeedka 2022 waxaanay guddida siyaasadda miisaaniyaddu u ballameen kulamo kale oo looga baaraan degayo meelaha ahmiyadda u leh qaranka ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa tafaasiil ka bixiyay ujeedada kulankaasi waxaanu yidhi maanta halkan aan isugu nimi wasiirada qaar ka mid ah wuxuu la xiriiraa diyaarinta miisaaniyaddu waxay leedahay jadwal iyo habraac bay leedahay jadwalkeedu wuxuu ka bilowdaa bisha May waxaanu ku dhamaadaa bisha October marka habraaceeda waxaa ka mid ah in marka hore la sameeyo qoraal si tafatiran u soo bandhigaya xaaladii dhaqaale ee sanadkiina soo dhaafay xaaladda dhaqaale ee sanadkan iyo odoroska sanadka soo socda miisaaniyaddu waxay leedahay jadwal bay leedahay iyo habraac jadwalkeedu wuxuu bilowdaa bisha May waxaanu ku dhamaadaa bisha October oo miisaaniyadda la geeyo golaha wakiilada habraaca waxaa ka mid ah in marka hore wasaaradda maaliyaddu ay soo diyaariso qoraal ku saabsan xaaladda dhaqaale ama dhaqaalaheenu siduu ahaa sanadkiina soo dhaafay iyo xaaladdu ku sugan yahay sanadkan iyo odoroska sanadka soo socda siduu noqon doono waxaa kaloo habraaca ka mid ah la tashiyo wada tashi lala yeesho golaha wasiirada iyo golaha wakiilada iyo shicibka intaba marka kulankii maanta wuxuu ka mid ahaa la tashiga lala yeelanayo golaha wasiirada oo ay ku matelayaan guddi ka kooban wasiiro guddidaas oo ah guddida miisaaniyadda xilkeedu waxa weeye inay ka taliso mudnaanta baahiyaha jira iyo in ay ka taliso lacagaha loogu talagalay lama filaanka iyo inay ka taliso guud ahaan laxaadka miisaaniyaddeena sanadka soo socdaa wuxuu noqon karo marka annagoo taa ka duulayna ayaan maanta shirkii ugu horreeyay halkan ku gallay waxaanu ku qaybsannay xogihii ka soo baxay daraasadihii lagu sameeyey dhaqaalaheenna sanadkii hore iyo sanadkanba iyo odoroska sanadka soo socda marka waxaanu yeelan doonaa kulanmo joogta oo xidhiidhsan oo arrimaha ku saabsan ay u xil saaran yihiin golaha wasiiradu markaanu dhammayno waxaanu u gudbi doonaa insha allah wada tashiga shicib weynaha iyo wada tashiga wakiilada maxaan idhahdaa golaha wakiiladaba lagu